ururkani markaa waa inuu ka shaqeeyo qoristii bahda suugaanta abwaanada hadday noqon lahayd suugaanteeda waa in la kayd loo sameeyo meel laga helo hadhow toolo loo tixraaco waxaan u soo jeedinayaa hoggaanka ku-meel gaadhka ah ee ururku inay sharciyad adag oo ururku ku sii jiri karo mustaqbalka in la sameeyo laakiin fikradda markii halkan lagu soo bandhigay runtii waan la qaatay waana fikrad aad u qurux badan laakiin mid baa iga dardaarana waxa weeye dunidu sharciyad bay ku kala socotaa ururaduna waxay ku shaqeeyaan waa sharci ay boqolaal sannadood ku jiraan waxaan u soo jeedinayaa hoggaanka ku-meel gaadhka ah ee ururku inay sharciyad adag oo ururku ku sii jiri karo mustaqbalka in la sameeyo in laga ilaaliyo qabyaaladda in laga ilaaliyo danaha shakhsiyadeed iyo in laga ilaaliyo wax kasta oo dhaawici kara jiritaanka ururka ururkani markaa waa inuu ka shaqeeyo qoristii bahda suugaanta abwaanada hadday noqon lahayd suugaanteeda waa in la kayd loo sameeyo meel laga helo hadhow toolo loo tixraaco waa inuu ururku yeeshaa waanan hambalyeynayaa hoggaanka ku-meel gaadhka allah idin guuleeyaan leh